waddanka Suudaan ay wax ka bartaan arday fara badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad walba waxa ka qalin jabiya jaamacadaha kala gedisan ee Suudaan ku yaal arday Soomaaliyeed kuwa oo soo dhabar adeegay waxbarashada muddo aad u dheer. jaamacadda Zaim al-Azhar ee ku taalla magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa waxay ka mid tahay jaamacadaha Soomaalidu ay aad ugu badan yihiin kana ay bartaan qaybaha kala gedisan ee waxbarashada. sanadan waxa ka qalin jabisay arday tiradoodu gaaraysa ilaa 21 arday kuwa oo ka baxay qaybaha kala gedisan oo waxbarashadu ka kooban tahay. qaar ka mid ah waalidiintii kala soo qayb galay awlaadooda farxadana aad ku weyn iyo ardaydii qalin jabisay ayaa iyagu muujinaya shucuurtooda farxadeed ee munaasabadan aad ku ballaaran ee hadafkeedu ahaa in ardayda Zaim al-Azhar ay la wadaagaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان يعني waxaan salaamay ummadda Soomaaliyeed ee meel ay joogto magacay waa Masar Maxamed Raagi runtii farxadeeda maanta ma cabirkin laakiin waxaan rabaa inaan si kalsooni ku jirto farxad ku jirto inaan u salaamo dhammaan eheladeyda dhammaan family dhammaan waxaan salaamay eheladeyda qaraabadeyda dhammaan abtiyaasha dhammaan reer xasan diiri waxaan salaamay dhammaan walaalahey ka soo qaybgalayaasha. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdiqaadir Xaaji Xaamid oo magac dharka Tawrafa ahna mid ka mid ah xiriiriinta maanta barnaamijkan ka qayb qaadatay soo diyaarintiisa iyo ka qaybgalkiisa. runtii waxaan halkan uga hambalyeeyaa dhammaan familkayga oo isku duuban ugu horeysa hooyaday runtii oo caawa horteeda ma qiyaasi karo farxadeeda laga qayb qaadatay runtii dhan walba way igu saaciday in heerkan maanta aan joogaan soo gaaro. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Maxamed Bashiir Saciid waxaan ka qaybgalay kulliyadda saxa ama jaamacadda Zaim al-Azhar aad baan u faraxsanahay maanta walaalahay kala qaybgalo insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan cilmiga baranaan waddanka ula noqono. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah ka fawsada sabab inta kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay ka soo qaybgalayaashii munaasabadan aadka qiimaha badan leh. inta kadib waxaan jecelahay inaan u diro hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Soomaaliland meel kasta joogaan gaar ahaan waxaan jecelahay inaan u diro hambalyo akhyaarta igala soo qabshay xafladan caawa habeen weyn kulan weyn dareenkayga aad iyo aad u mahadsantahay. assalaamu calaykum. Suudaan ayaa waxay ka mid tahay wadamada lafdhabarta u ah kobcinta iyo kor u qaadida ardayda Soomaaliyeed garaadka aqoontooda iyadoo sanad walba minxooyin lacag la'aan ah ay wadanka Suudaan wax uga bartaan ardayda Soomaaliyeed. Maxamed Ciise Koona, Somali TV, Khartoum, Suudaan.